maamulka gobolka Gabiley gudida abaaraha ee gobolka iyo gudida abaaraha ee degmada Togwajaale ayaa si rasmi ah u qaybiyay raashin loogu talagalay dadka barakacayaasha ah ee ka soo barakacay deegaanada gobolada bariga Somaliland ee ku sugan deegaanada hoos yimaada gobolkani Gabiley. Gudiyadani oo raashinka si rasmi ah u gaarsiiyay 6 tuulo oo hoos yimaada gobolkani Gabiley oo ay waqti xaadir kale ku sugan yihiin dadka barakacayaasha ah ee ka soo hayaamay gobolada bariga Jamhuuriyadda Somaliland. raashinkaas in dadka soo guurtada ay halkan oo dadka ugu badan ay qaataan raashinkina wata la dhigay dadkina waa la habeynaya 6 goobood oo ay halkan ka mid tahay maanta raashinka lagu bixinaya ilaahay idinki waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay inaga soo gaaro roobkiisa iyo raxmadiisa inoo shubo imka roobkii uu curtay galbeed buu ka bilaabmay xalay ilaahay baantiisa lagu baahi bixi karaa marka waxaan leeyahay cid kastoo ka qayb qaadatay waan u mahadnaqaynaa jazakallahu khayr waxaan maanta halkan aan ku qaybinaynaa 900 oo qoys oo aan ugu talagalay dadka soo guurtada ah waxaan ugu talagalay intaasaan ugu talagalay dadkina waa kuwa joogay halkaasi waananu soo diyaarinay imkaan ku fadhiisin doonaa maanta waxay noo suurta gashay gobolka Gabiley inaan ilaa 6 meelood ka mid ah u qaybino raashinkii Itoobiya nagu caawisay gudida waxa weeyaan qaranka abaaruhu markaa ay ugu deeqday gobolka على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوبتنا أن تاجني وقوبت الله يهدو عدد داري وكترسن قبل كقبلي وحنو قايبين أن ما أنت راشين لقوا قياسي شن بقولوا قيس راشين كاس أو قيب كأه راشين أفر كل قيسة وينقوليتين جددا تأكلين تعبارها إهير قرن يقوليتين جددا تأكلين تعبارها إهير قبل راشين كاس وقيب كي هي راشين كي أي نوع عروسي دولة أن درس كان هاي إثيوبيا لو قلت لك قلت كعباره أي فين رنتي وحي يكون صدرين جد عبارها أي هالقرن رنت حالات وطرن وحيسكاري عبارتي تذكي صهر يامي يدتكي سيجوجي لابد وحي كسوجيهين حالات عبارات وعض طرن راشي كافر تكون قويسة وحلقوا قيبنا يا أنتوا كجارو جوابها أي كبديهين dadka soo guurtada ee abaaruhuna ay ka jiraan ee gobolka ka tirsan runtii waxaan jecelahay halkan inaan uga mahadnaqo madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo oo runtii baaqiisa iyo qayladhaantiisa intii ay ka socdeen abaaruhu gobolkan wax badan ay naga soo gaadheen aan joogno kun qoys raashinkoodii alxamdulilaahi rabbil caalamiin si nabadgelyo oo qiimo leh noogu dhamaatay اللهم صل على وحى كلو جرا شكون أو قيس أو دقمة توجه حالي بحسي ما ندابي راشين كي يراضي ويضنا لو بحني قد كعرضنا سجال بقول أو قيس باللوجو تلقى إن شاء الله تعالى إن يجرو كقاتان رمان نبتجلي أسان ورك كهري نوضة دمادين واحد شرا لامبر واقع كرا يضنا جوابا يلا الكوينة يضنا سن نبتجلي الحمد لله سجال بقول قيس يضنا كل ماتي الحمد لله إلهي بمحضله إن الله سبحانه وتعالى إلهي بباهي السيف عند سلوك باهي بحا بالآدم بين ناس كفقر إنه هاي سيدي أوقتين راشي كانوا قايبين حو بدن راشي كنا جسوا قاري دولة إنشارك إن هي إثيوبيا يجنوا حولنا إن شاء الله تعالى مساك حسنات كالله هيد كدرة ورسولنا والدولة ولا لذنا شارنا هاي وحن كلا يجنوا محل علين نور عليال عيدا كقرن كا أو يجنوا قايب لباح لك قاتي إلا ما ننتي وحكروا شرتي يجنوا قبل دقمة وجهالة يقبل كجبيلي يقود ذا يهر قبل يمام الكودبة سيدا شرفت قيمها لو قيب قاتين إمك الشامبيلوت أي تبرعات لو جري أو بيله أو بدله أو راشين له أو ضدك ولا لدو جارسيني قعدت إلهي بالقول رجع إلهي سبحانه وتعالى حكبر إلهي نصفرته الدقمة تقوى ضدك ولا ليالوارد بيهاي باهي باشرته ووقتين حالة ودن كانت هالله يابارها العي راشين كمان تاي نقيبين إن إثيوبيا إنه كانتي إنك أيها كم ضد ضدك الإسلام كا مسلمين تاي أنت دقعنت كوه يستا إنه ولا له وحطران وأي مارك توحي إلهي سبحانه وتعالى سي وحكم إذا ولا له هذا يكون عاويان إنك أيها ضن عد عاوي ماذا وحكي جيس توحن لا يهاي هدي جود اللي تشوجه يهدي دبل اللي تشوجه بقى هلو قاعد تتكاس وعينو تشوجنا حالد حلقي الروب كبلا بي إلهي نوحن كبر ينا روب ركيسن ومدة ماشي كسو قرته وحي هاي ستا حوالات شلعسن آدي آدو شلعسن حولاسي وحي باهيهين طرنشada laga ilaaliyo in bacal loo iibiyo in la ilaaliyo bay u baahan Washington Somaliland waynu ognahay hanti kala xoolaad oo meel inoogu maqan ma jirto inta galbeed joogta mooyaane wixii kala way dhamaadeen oo way ku daayeen halka ay Somaliland xoolaheedii isugu yimaadeen
shinnidaasi waxay u baahan tahay in la badbaadiyo dawlad iyo shacab in la isugu tago gacmaha la isugu geeyo in wixii ilaahay bixinayo cidina joojin maysa laakiin inuu dadaal badan ka galno ayaa loo baahan yahay gobolka Oodweyne ka soo guuray oo la yiraahdo magacayga Muune Ibraahim Warsame waxaan sheegayaa inay raashinkii gudida wajaale ay noo keentay in loogu soo dhiibay inay si fiican oo sharaf leh noo siiyeen noona gaadhay bismillaah ilaahay dhadhama shaqada looga dhigay iyagana ilaahay khayr ka siiyo dadkii soo guurtada ahaa ee soo guuray baanu nahay markaa gudida wajaale si fiican oo wacan bay noo siisay raashinkii oo noo soo gaarsiisay guurtada ahaa gudidii degmada wajaale ee raashinkeena siinayay si wanaagsan oo asluub laba noo siiyeen oo iimaan leh aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta Star TV magaalada Gabiley.